dhinacaas iyo dalka Jabuutina sida lagu shaaciyay war-saxaafadeed shalay ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalkaas maalin walba waxaa soo taraysa tirada dadka qaba xanuunka COVID-19 baaritaan la sameeyay shalay ayaa lagu ogaaday in 5 qof oo cusub laga helay xanuunkani kuwaas oo tirada guud ka dhigaysa 30 qof warbixin arintaasi ku saabsan waxaa Jabuuti ka soo diray Ramadaan Muuse war-saxaafadeedkan maanta ka soo baxay wasaaradda caafimaadka Jabuuti oo uu ku saxeexan yahay ku-xigeenka wasiirka caafimaadka Jabuuti oo xogeyaha guud ee wasaaradda Dr. Salax Banoyta Turaab oo nuqul sidii ay ahayd caadadu la soo gaarsiiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa lagu shaaciyay in 195 baaritaan oo maanta lagu sameeyay shaybaadhada sida gaarka ah loogu talagalay xanuunka COVID-19 5 qof oo reer Jabuutiya laga helay xanuunkaasi iyadoo 3 ka mid ah 5taasi qof xanuunkoodu uu yahay mid la isku gudbiyay labada kalena ay yihiin xaalado cusub warkan wuxuu intaasi ku darayaa in tan iyo maalintii sida rasmiga loo shaaciyay in xanuunka COVID-19 laga helay dad reer Jabuuti oo degan Jabuuti oo ah 23kii bishan March la hirgeliyay 815 baaritaan caafimaad oo la xiriira xanuunkaasi iyadoo haatan 30 qof ay tahay tirada rasmiga dadka reer Jabuuti ee degan Jabuuti ee laga helay COVID-19 war-saxaafadeedkan maanta ka soo baxay wasaaradda caafimaadka Jabuuti wuxuu tilmaamayaa in marka la qiimeeyo maanta xaaladda caafimaad ee dadka laga helay COVID-19 ay tahay mid degan oo lagu kalsoonaan karo hase yeeshee loo baahan yahay in la sii kordhiyo foojignaanteena waayo siduu u fidaya xanuunka coronavirus waa mid aan la saadaalin karin xaaladuhu u socdo waa siduu warkan u qoran yahay war-saxaafadeedkan ka soo baxay maanta wasaaradda caafimaadka Jabuuti waxa kaloo lagu xusay in xanuunkan COVID-19 uu maalinba maalinta ka dambaysa ku sii fidaya Jabuuti iyadoo inta badan maalin walba baaritaanada caafimaad ee la sameeyo lagu xaqiijiyo dad cusub oo qaba xanuunkaasi sidaasi darteedna looga baahan yahay dadweynaha reer Jabuuti inay si wanaagsan u tixgeliyaan talooyinka badbaadada ee ay soo jeedisay dawladda Jabuuti inkastoo dawladdu ay ka warqabto culayska xoogga leh soo food saaray nolol maalmeedkii bulshada iyo habsami u socodka dhaqaalaha dalka dhinaca kale waxa maanta u bilaabmay Jabuuti toddobaadkii labaad ee ay xidhnaan doonto magaaladu ilaa 9 bisha April iyadoo la sii kordhin doono muddada haddii xaaladda caafimaad ay u baahato sida sheegayaan ama ay hadal hayaan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta caafimaadka Jabuuti magaalada Jabuuti waxa inta badan joogsatay noloshii iyadoo uu joogsaday gaadiidkii dadweynuhu ay xidhan yihiin inta badan goobaha ganacsigu isu socodkii dadkuna uu aad u yaraaday shaqaalaha ayaa ka fadhiya dhammaan shaqooyinka marka laga reebo dhinacyada muhiimka ee xagga marsooyinka shaqaalaha cashuuraadka korontada iyo biyaha isgaarsiinta iyo warbaahinta waxa xidhan dhammaan dugsiyada waxbarashada iyo goobaha ay ku kulmaan dadweynuhu waxa kaloo jirta in ciidamo tiro badan ay dhex wareegayaan jidadka magaalada iyagoo iskugu jira military police iyo ciidamada gendarmeriga waxayna ku wargelinayaan dadweynaha in loo baahan yahay in lagu eekaado guryaha